aan fariin yar u diro bulshada ku nool gobolada Sool Sanaag iyo Cayn oo bariyahan dambe ay haraysay amni darro kadib markii gobolada gobolada waqooyi ay bilaabeen weerar joogta ah Cagalule ayaa sheegay maamulka taagta daran ay bilaabeen dilal qorsheysan ay ku beegsanayaan hal doorka shacabka Sool Sanaag iyo Cayn iyagoo aaneynaya gobolada ay ka soo jeedaan ayna indhawaalaba ka wadeen hal doorka iyo nindoorka ku nool magaalada Laascaanood iyo nawaaxigeeda inay dilal qorsheysan ku dilaan oo waxa ka sii daran habeen saddexaad caaqilkii Axmed Aaraha waxa ku dileen magaalada Hargeysa si bareer ah oo la kaca madaxweyne Cagalule ayaa dhanka kale sheegay in Khaatuma ahaan ay kula midowday dawladda Puntland dagaal lagu difaacayo gobolada Sool oo qayb ka mid ah ay gacanta ku hayso maamulka Soomaalidiid isla markaasna wada daandaansi qarisku xoora waxaan rabaa dadka ku dhaqan gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn hal loogu yeero SSC ha ahaadeen Khaatuma ha ahaadeen amba ha ahaadeen dadka nidaamka Puntlandismka aaminsan ha ahaadeen waxaan rabaa inaan ku booriyo difaaca iyo nabadgelyada deegaanada Sool iyo Sanaag iyo Cayn inay u diyaar garoobaan guud ahaan bulshada reer SSC ama Sool Sanaag iyo Cayn waxaan rabaa dagaalka ay hormuudka ka tahay maamul goboleedka Puntland sidii gacan loogu siin lahaa bulshada reer Sool ama reer Sanaag ama reer Caymeed sidii ay isugu garab taagi lahaayeen xal u raadinta amni u raadinta iyo difaaca dhammaan deegaanadaasi in lagala qayb qaato si buuxda looga qayb qaato la raadiyo sidii wiilkiisu amni ay ugu noolaan lahaayeen sidii looga bixi lahaa dhimashadan joogtada ah wuxuu kaloo sheegay in marnaba loo dulqaadan doonin dooxatada ay maamulka jeegaantu ku wadaan shacabka gobolkaas isla markaasna uu shirqoolka u soo abaabulay hogaamiyaha maamulka Hargeysa oo ah shakhsi banaystay daadinta dhiigga Soomaaliyeed waasoo hadalka u dhigay askaratan ka timi Gabiley ee habeen iyo maalin dooxatada ka wada magaalada Laascaanood iyo agagaaraheeda sidii looga gudbi lahaa in qof walba oo u dhashay deegaanadaasi ama ku noolaada dalka gudihiisa ama ku noolaada dalka dibadiisa arinta inaad gacan buuxda ka geysataan waan idinku boorinayaa oo idinkula dardaarmaya oo idin leeyahay waxaan kaloo rabaa inaan laba kelmadood ka idhaahdo dadka reer Sanaag ama magaalada Ceelafweyn iyo agagaarka magaalada Burcaba dadka markan ay u muuqato Soomaalinimadu dhalinyarada firfircoon iska abaabulay dibadda qurbaha iska abaabulay raba micin ku dhiiglaha biixi ah inay taladii ummadda tan ka soo celiyaan waxaan u sheegaynaa inaanu heliyoba la garab taaganahay inaanu siyaasadooda soo dhaweynayno inaanu qarannimada iyo federalismka Soomaaliya ku soo dhaweynayno Susan Cabdullaahi Jamac Puntland TV magaalada Garowe